كاتو أسعد الله صباحكم بكل خير سومالوين ميل بقى جوكتان صباح وناكسن عشر كان اللباد أو أها حرفضها جلعسن لأنه soft skills وحرفضة جلعسن ما حرفضة فضوط وحرفضة جلعسن وحين سوغر نتي لباد أو team work time management أو مارين وقتها كلباد و team work وضع شقين. Teamwork bring people together and motivate them to rely one another. Teamwork bring people together and motivate them to rely one another. وضع شقين تا dadka isu keentaa dhiirigelisaa si ay qof walba ka kale u caawiyo. Teamwork, collaboration, effort of a group to achieve a common goal. Teamwork, collaboration, effort of a group to achieve a common goal. wada shaqayn waa iscaawin dadaal dadeed si ay u gaaraan dan guud ama dan ka dhaxaysa. Teamwork allows group to overcome obstacles. Teamwork allows group to overcome obstacles. wada shaqaynta waxay dadka ka helaan ka gudbid dhibaatooyinka si fudud. dhibaato walba caqabaad ay leedahay ama dariiq hortaagan oo qofkii u diidaya inuu shaqadiisa dhamaystirto. marka groupka wuxuu sahlayaa in caqabadahaas ama matabaadkaas dhaqso looga gudbo. Good example of teamwork is a family. Good example for teamwork, it's a family. tusaalaha ugu wanaagsan wada shaqaynta waa reerka ama qoyska. haddaynu kusoo ceshano wada shaqaynta dad bay isu keentaa dhiirigelisaa si uu qof walba ka kale u caawiyo. waxay isu caawinaan leena waa team. markii koox la yahayna ama fariiq la yahayna shaqadii maaha individual waa qof markuu keli yahay. markii team la yahay shaqadii waa group ahaan. marka groupka qof waxaa ku jira fudud, qof waxaa ku jira culus, qof waxaa ku jira dhexdhexa. marka kii fududaa wuxuu u sahlayaa kii culusaa iyo kii dhexdhexaadka inuu shaqadiisa qabto oo tusaale fiicanna u noqdo. لأن overall markii la qiimeynayo ama la evaluate gareynayo waxaa lagu evaluate gareynayo as a group not as an individual. markii la qiimayo koox ahaana loo eegaa qof ma aha. marka kii fududaa wuxuu ku khasban yahay inuu kii dib u dhacsan inuu la qabto shaqadiisa ama uu qabtaba shaqadiisa si uu tusaale fiicanna ugu noqdo. kow talabaadna uu kiina ku daysado, talabaadna shaqada si dhaqso u dhamaato. inay koox isku jirtay yihiin. kooxdan waxaa leeyahay koox A koox B lama dhahayo hebel iyo heblaayo iyo la markaan group A group B saas loogu wacaa. wada shaqayntu waa iscaawin dadaal dadeed si ay u gaaraan dan. waa group isu yimid oo gaaraya dan gaara ama dan guud. hadda guriga for example guriga kala la dhisayaa. qofkii dhulka gatay wuxuu raadinayaa qof guriga u dhisa ama shirkad guriga u dhista. shirkadii u tagayaa wuu la soo heshiinayaa. waxaa la kala qoranayaa caqda la kala qoranayaa intaasaa lagugu dhisayaa intaasoo bilood intaasoo lacag ah. lacagtii u siinayaa ama mar ama dhowr dafcadood kala siinayaa marba siday ku heshiiyaan. aakhirka maxaa waaye kana lacagtii bixinayaa kana shaqadii u qabanayaa. waxay wataan dan kaliya oo ah inuu gurigaas dhammaado si loo dego. midna gurigii le lacagtiisu haystaa, midna dhismihii haayaa iyo dadkii dhisaayay oo wuxuu rabaa inuu shaqadaas dhameeyo si lacagtiisa u qaato. marka labadoodu waxay wada leeyihiin dan gaara oo ah dantaasay leeyihiin maxay tahay inay gurigaas dhammaato. danta ka dhexaysa waxay tahay inuu gurigaas dhammaado, ninkaana gurigiisa qaato, ninkaana lacagtiisa u qaato. Team allows group to overcome obstacles. wada shaqayntu waxay dadka ka heli karaan ama ay kaga gudbi karaan dhibaatooyinka si fudud. لأنه waxaan ka warqabnaa daily life-ka inuu qof walba uu dhibaatooyin badan ay la soo gudbanaato.
dadna ay gudbi karaan dadna ay dib u dhigto ay waqti dheer ku qaadato laakiin markaan group la isla shaqeynaya maxay fududaynaysaa inuu qofkii dhaqso ka gudbi jiray uu caawiyo qofkan ay waqti kaga qaadan jirtay seen hore soo sheegnay soo isagan tusaale fiican ugu noqdo ka barto sida loo dhaafayo caqabaadkaas inay together iyagoo isla jira ay sahal u dhaafaan tanaan toortaa soo uga baxayna waa fikrad weysa soo uga baxayna aniga saan ila tahay ana saan ila tahay ana saan ila tahay tanaan fiirinayna ma ka gudubnay waa ka gudbi weyne waxaan qaadanaynaa ka labaad ma ka gudubnay alxamdulillah ka saddexaad inuu qof walba wuxuu sheegayaa ra'yigiisa siduu yahay awal markaa kaligaa ahayd ra'yigaaga bas haysatay laakiin hadda markaad team tahay ama koox aad tihiin qof walba ra'yigiisa sheega dhibaatadan si ugu gudubnaa aniga saana ila tahay aniga saana ila tahay aniga saana ila tahay taydaa la fiirnaa way socon weysay tiisaa la fiirnaa way socon weyday taydaa la fiirnaa way socotay marka kulligaa waxaan ku qaadanay khibrad teamwork allows group to overcome obstacles taas waa tii khibrad la qaada dhibaatooyinka dhaqso lagu dhaafayay maxaa tusaale fiican u ah teamwork reerka wada shaqaynta waxaa tusaale fiican u ah reerka qoyska maxay ka kooban yihiin hooyo iyo aabe danta ay rabaan maxay tihiin inay iskuursadaan ay ilmo dhalaan ee iyagana beri noqdaan reerkiisi iyo nin walba waxaa ka dambeeya baggage laakiin hadda waxay go-aansan inay iyaga reer noqdaan oo reerkii aabihiis iyo kii hooyiska la mid noqdaan iyaga reer cusub ay noqdaan ay wax dhalaan si ciyaalkoodana beri reero kale ay u noqdaan goolka ka dhexeeya waxa waa inay reer abuuraan akiid bimusaacadat allah haddii ilahay lado way sugana laakiin danta guud ay isugu yimaadeen waxay tahay in reer la dhiso marka tusaalaha ugu fiican ee teamwork waa kaas aaba uu baxa banaan kasoo shaqeynaya hooyo guday kasoo shaqeynaya ama cags laakiin fi nihaaya waxay tahay ilmahaas yimid in meeshay waxay cuni lahaayeen meeshay seexan lahaayeen caafimaadkoodii wax walba loo diyaariyo maxay ugu diyaarinayaan dhino iyagaa dhalay sidii iyaga loo soo yeelay shalay markay yaraayeen tusaalaha xaggee ka keeneen dadkii dhalaa tusaale fiican u ahaa ay kasoo qaateen marka iyagana markooday suubinayaan si ay iyagana tusaale kasii fiican ugu noqdaan ilmahooda oo iyagana kuwii group generation si gudbiyo taas waa good example-ka nin walba wuxuu noqonaa tusaale shalay adaa ciyaal ahaa iskoolkaagii cuntadaadii dharkaa gashanaysid ciiddii waxaad qaadanaysay adoo kala jecleen miisku kuu saaran yahay yaa kuu diyaariyey aabaha iyo hooyada kuu diyaariyey adigana beri markaad meeshooda gashid ama aaba ama hooyo noqotid ciyaalkaaga waa ku khasbanta inaa u diyaariyo sidii shalay lagugu soo diyaariyey aad adna u diyaarinay maxaan ku diyaarinaya sa ana cunugayga u baro ama cunugtayda u baro beri iidna kuweeda ama kuwiisa si ugu diyaarin lahaa wahaakada jiil bacda jiil tusaalaha fiican inaan isu noqono marka wada shaqaynta tusaalaha ugu fiican waa qoyska waxaan rajeynayaa inaan si fiican u wada fahmnay qofkii istifsaar iyo ka qaba commenkaa noogu soo qori kartaan خير بدنا إذا رجينا يا أنتي دمو دمنا ساسا مال ميدو سو قلنا دي الله يراهدو خير بدنا إذا رجينا ميلو بقى جوكتان work together الله يسعاويو دايما ودا سومالي هلا يسعاويو team work وحكا في عن مالي شقوين بدن بيفضلين يسا team work خير بدنا إذا رجينا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته